munaasabadda xil wareejinta wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiiradii hore wasaaradaha ganacsiga iyo maalgashiga warshadaha iyo dalxiiska wasiirka beeraha Soomaaliland wasiirada cusub ee ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska iyo maalgashiga wasiiru dowladda hore wasaaradda ganacsiga agaasimayaasha kala duwan ee wasaaradaha si shaqaalaha iyo mas'uuliyiinta rugta ganacsiga Soomaaliland gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland Maxamed Shukri ayaa u mahadnaqay mas'uuliyiinta kala duwan ee xilka wareejinaya geestiga wasiiru dowladda hore wasaaradda ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliland Maxamed Warsame ayaa isna mahadnaqay madaxweynaha hore jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamuud Silaanyo isagoo sheegay in loo shaqeyn doono wasiirada cusub iyo xisbigiisa kulmiye waxaan leeyahay mabda ayagii baa guuleystay xisbinimadu waa xeel dheeri lagu xaqiijiyo siyaasadda xisbinimadu maaha xil iyo xoolo xajiina ma laha annaga waxa sharaf iyo karaamo noo ah inuu xisbigayga guuleystay mabda ayaa mansab kasta ka weyn madaxweyne Muuse Biixi mabdii aanu shalay ku dhisnay ayaanu maantana kula shaqeynaynaa wasiirka hore wasaaradda ganacsiga Soomaaliland Cumar Shacay Maxamed ayaa hadal dheer oo halkaas ka jeediyay waxa uu mahadnaqay shaqaale weynaha wasaaradda ganacsiga ee maalgashiga Soomaaliland iyo waxyaabihii horgalay muddadii uu xilka wahayay waxa wasaaradda ganacsiga ee maalgashigu ay sameysay boolisiyo fara badan oo kamid yihiin booligii ahaa ganacsiga boolisigiisii loo sameeyo iyo siyaasadii ganacsiga oo imika runtii gabagabo ku dhow waxa kale oo iyaduna wasaaradda ganacsigu ay sameysay ama amendment ku sameysay shuruucdii maalgashiga dibadda amba ajnabiga foreign investment law iyaduna lagu sameeyay amendment oo ahaa runtii lafdhabarta ama waxay inooga baahan yihiin marka la maalgashanayo wadanka waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan in la helo sharcigii waxa la weydiinaya waa shuruucduna runtii anigoo aad iyo aad uga mahadnaqaya baarlamaanka waxa weeyaan shuruuc la'aan cidina waxba kuma maalgashanayso wadanka marka runtii qolada baarlamaanka waan ka wada hadalnay waan ka wada shaqeynay in badan baan loobin kaga jirnay inay suuragal noqoto amba ay hirgasho in la macnaheeyo waxa weeyaan la ansixiyo sharciga company-ga sharciga shirkadaha oo runtii iminka muddo 2 week ka hor la ansixiyay aad iyo aad runtii waan ugu mahadnaqayaa qorshaha runtii waxa weeyaan waxa jira iyaduna waxyaalo fara badan oo aynu halkan ku aynu qabanay oo ay kamid yihiin in markii ugu horeysay anu saala sheegay ganacsatada waxa weeyaan ganacsatada iyo wasaaradda ganacsiga way isku xidhmeen oo markii ugu horeysay in ka badan 400 oo ganacsatadii dhexe oo ay sameystaan oo kala shaqeyno inay urur sameystaan daruur la yiraahdo oo maanta markaan u baahna ganacsatada guddiyo kooban baan uga yeedhnaa wasaaradda way ku xidhnaayeen runtii aad iyo aad bay noola shaqeynayeen geestiga wasiirka hore wasaaradda warshadaha Soomaaliland mudane Shacay Maxamed Muuse ayaa isaguna hadal halka ka jeediyay waxaan maanta xilka wareejin doonaa wasiir waayaraga oo rugacda ah oo naga khibrad badan oo naga aqoon badan iyo ku hagista shuruucda aanu sameynay kala xadeyntooda ilaalinta fikradaha mashruuca kuwa hirgalay kuwa aan hirgalin waxa soo dhan waanu diyaarinay runtii marka umadinada kulli iyada danaheeda iyo masaalixdeeda ka tashata oo wax isku tooso wax isku hagaajisata dhinaca kale wasiirka hore wasaaradda dalxiiska Soomaaliland Khadar Xaaji Yuusuf ayaa isagu wuxuu ka hadlay ahmiyadda dalxiisku u leeyahay dalka Soomaaliland isagoo u mahadnaqay shaqaalaha kala duwan ee ay soo wada shaqeeyeen wasaaradda dalxiisku wasaaradda waxa caalamku isku dhaafin weeyaan waxa dhaqaale badan laaskeel oo kale meel la mid ah hadda aragtid oo mesela Urdun ku taalo kale ama meelaha kale ku taala waxa laga yaabaa dhaqaalaha waddankeena oo dhan soo gala wax ku 3 laama ama 4 laama ayaa meelaha laaskeel oo kale laga helaa in waxa u baahan tahay sida looga shaqaysiiyo iyo sida caalamka loogu iibgeeyo ayay u baahan tahay geestiga wasiirka cusub ee wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska Soomaaliland isna waxa uu ka hadlay miisaanka ay wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska ugu fadhida qaranka Soomaaliland isagoo u mahadnaqay shaqaalaha kala duwan ee wasaaraddiisa wasaaradda tani waxa daba fudaynaysa dadkii maalgashiga sameyn lahaa ee maalqabeenkii iyo u fudaynaysa sidii ay moogtahay wadanka wax u galin lahaayeen waxa kale oo qani ku nahay wadankeena iyaanan ku fikirno hadiye jeer kumayaal dhalinyarteeniya oo Soomaaliland darisa iyo yimaada sanad kasta suuqa bay wareegan haddaan u diyaarin lahayn meela moogtahay ay ku raaxaystaan wadankana dakhli baa ka soo gali lahaa iyaguna moogtahay waxa weeye wadan jacayl baa ku dhicila
geesta kale wasiirka cusub ee wasaaradda maalgashiga Soomaaliland mudane Cawad ayaa isna waxa uu sheegay inuu ku faraxsan yahay xilka uu magacaabay madaxweyne Muuse Bixi Cabdi. waxaan halkan uga faa'iideysanayaa inaan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ugu mahadnaqo rag badan oo afmishaariin oo hadal badan yaqaanay iga horeeyay marka wax badan oo aan ku cusubahay laakiin inta nafta baxayo hal ay sugo insha Allah runtii wasaaraddan aan joogno wasaaraddan wada shaqayn leenahay ayay ahayd runtii wasaaradda ganacsiga aad baan soo fiican anu cashuurahan joogay marka kuma cusbiye cashuur ururiyana runtii raggan oo dhan dawladooda ana cashuurta ugu soo ururin jirtay say u banday marka waan soo wada garanaa runtii ugu dambeyntiina wasiirka cusub ee wasaaradda ganacsiga warshadaha iyo dalxiiska Soomaaliland mudane Maxamed Xasan Saacad Saajin ayaa si rasmi ah xilkii ugu la wareegay mas'uuliyiintii hore xilkaasi sii hayay.